dhawaan ayaa ahayd markii xukuumadda Soomaaliland xabsiga u taxaabtay gudoomiye ololaha kaalmee kuwan Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon kana mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada Burco. Wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa inta badan ka shaqayn jiray olole khayriyo la magac bay kaalmee kuwan oo la isku tuso dadka danyarta ee waxba haysan iyo dadka qaniga ah. Haddaba xadhigiisan ayaa waxa maanta ka hadlay dadkii danyarta ee uu wax soo taray wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon, waxaana madaxweyne Silaanyo iyo laamaha ammaanka Soomaaliland ka codsadeen in loo soo daayo samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ay sheegeen inuu noloshooda wax badan ka kaafiyay. madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa guryahan ku jiro isaga noo dhisay biilkana gacantuu noogu hayay Cabdimaalik la xidhiyo ilaahay waaga inaan ka dabnaga dagina de madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad ninka noo soo dayso. magacay waa Cabdalla Aadan Dhagasoog. waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa maca booliska inaad soo daysaan Cabdimaalik Muuse Coldoon guriga noo sameeyaan oo hoosti fadhiya. saasaan ka codsanayaa inay iska cafidaan ilaahay inala qabto isagoo baraxa uu noo yimaado isagoo sidiisa baabuurka u wato. waanu waqtiyayna intii waxba maanu helin saasaanu u eegaynaa ilaahay waxaanu u barinay wayna noo soo daaye Cabdimaalik noo soo daaye waanu waqtiyaynaa cid waxna siin mayso isagun baanu sidaa weegayna itaal malihi anigu ma socdo ma dhaqaaqo kaa curyaankaabaan la mid oo saasaan meesha u fadhiya noo soo daaye oo noo keenay ilaaha weyninaha idinla qabtay noo soo daaye noo soo daaye walaalayaal noo soo daaye madaxweynaha Silaanyo taliyaha noo soo daaye isagaanu cid ka dhiganay noo anfacahaayo waxna siinaya noo soo daaye. qalbigay waxaan ka bari in ilaahay waa Cabdimaalik dawladda oo ka soo daaye oo isagoo nabad ah oo wanaagsan oo xorriyada noo yimaada oo wuxuu noo qaban jiray baa noo qabta oo siduu noogu gargaari jiray noogu gargaara oo siduu noo caawin jiray noo caawiya oo sidii wanaagsaneyd noola dhaqmaa oo siduu wax noogu keeni jiray wax noogu keenaa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda waxaan ka codsaday Cabdimaalik Muuse Coldoon oo kaalmeeyay ururka kaalmee kuwan ku kaalmeeyay ummadda baahan aan ka mid aniga ayaa Nuur Axmed waxaan ka doonayaa inuu celiyo xorriyadiisii ay ku cafideen Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland dadka baahan ee u kaalmeeyay anigoo kala meedhana ama qaarigaba si daran jiran si aanan oo kala meedhana anigu waxaan sheegay Cabdimaalik Muuse Coldoon mooyo walaal kale maliya aabe kale maliya inaadeer kale maliya Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan doonaynaa in xorriyadiisii loo soo celiyo gaar ahaan anigoo ayaa Nuur Axmed Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaanu ku codsanaynaa boolis iyo madaxweynaha inay noo soo daayaan laakiin anagu waxaanu nahay dadkii masaakiinta ahaa ee dawladuna kaalmaysay ugu horreeyay dadkan la kaalmeeyay guryahana uu noo dhisay. marka siday markii horeba noo kaalmeeyeen inay maantana sharaf noogu samayso dawladda iyo booliska iyo madaxweynuhuba oo dee Cabdimaalik Muuse Coldoon inay noo soo daayaan si sharafti leh noogu soo daayaan baanu ka codsanaynaa. anagu markii hore wax allaale waxaanu ummadana ogeyn sidaanu ahayn waa qof waliba waa uu garanayaa waa kii buulka yar iyo buul halkan aanu ku jiray. marka si sharafna naloo galay horta Soomaalidu noo gashay waxbayna siiyeen gacantana wuu noogu hayay isagaa noo dhisay oo dee wixii ayna siiyeen xoolihii nala siiyey ayuu nooga dhisay. iminkana lacagtii wuu noo hayay oo si sharaf leh buu noogu hayay. iminkana waxaanu doonaynaa sidii sharafka lahayd in loogu soo daayo wuu qadami karaa oo si aan wuxuu ahayn buu qadamaa hadduu dee gafay isagu dee haw dambi dhaafaan hadduu ku gafay ilaa anagu wuxuu isku sameeye garan mayno hadduu ku gafay
si kastaba ha ahaatee wariye cabdimaalik sheekh muuse coldoon ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku xidhnaa magaalada hargeysa kaasoo xukuumadda somalilan xadhigiisa u sababaysay inuu qarannimada somalilan ka hor yimi kadib markii uu taageero u muujiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. jaamac Saleebaan Cumar, telefishinka caalamiga SBC, magaalada Burco.